maxkamadda ICJ ayaa shalay soo gabagabaysay dhageysiga dacwada badda ee u dhaxayso waddankeena Soomaaliya iyo waddanka nagu haysto baddayada waa Kenya. ICJ ayaa la filayaa inay go'aan ka qaadato dacwada badda dhowr bilood ka bacdi. qaar sharafta la meel walba joogtaan waa salaamantiin waa Maxamed Faarax fadlan subscribe garee channelkayga Maxamed Faarax ee YouTube fikirkaaga ka dhiibo lana wadaag فيديوغان فيديوهاشا كله أصحاب صاحبة baraha bulshada kugula jirto Facebook iyo YouTube sida waqtigiin March 15 isniinta hadartaan ahayd ee maxkamadda ICJ bilowday gunaanadkii dacwada badda ee Soomaaliya ee Kenya dacwadan badda oo bilaabatay 2014 markuu xilligaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud geeyay dacwada maxkamadda ICJ Kenya iyo Soomaaliya قصة وزيرك Minister of Planning وزيرك وزير عبد الرحمن عبد الشكور iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya xilliga Wetangula ayaa kala saxiixay MOU is-afgarad 2009kii 6 bilood ka bacdi baarlamaankii Soomaaliya xilliga jiray ayaa MOU-gii diiday kana hor yimid 2014 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dacwada August bishii 8 badda geeyay ICJ yiri badda waxa iskala Soomaaliya MOU gaasna wax kama jiro hadaba dhowr sano ayay qaadatay dacwada badda dhowr mar Soomaaliya Kenya waa loo wacay way ka soo qayb galeen inkastoo markii hore Kenya ay diiday tiri ICJ xaq uma laha inay qaado dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya ka bacdi markii dambe way ogolaatay oo ku qasbanaatay maadaama ay Soomaaliya Kenya yihiin wadamada saxiixay ICJ maxkamadda caalamiga ee caalamka ugu dambeyntii March 15 ayay qabatay inay dhageysato Soomaaliya Kenya dacwadeeda kadib bacdi markii dhowr mar Kenya ee ka codsaday maxkamadda ICJ in dib loo dhigo dhageysiga dacwada badda laakiin markii ugu dambeysay ICJ way ka diiday waxayna tiri March 15 Kenya iyo Soomaaliya waa inay soo xaadirtaan Soomaaliya way soo xaadirtay waxaana hogaaminayay ergadeeda ra'iisul wasaare ku xigeen Mahdi Guuleed iyo qareeno caalami ah oo international ah oo ka mid yahay Professor Philip Sanders oo u dhashay British French Paul Rekler oo qabiir Mareykan Professor Hélène Pelé oo Francis garyaqaan Alina oo Francis iyo Mr Craven oo u dhashay waddanka Ingiriiska waa qareer Soomaaliya waxay hay'ad-gareysay khubaro caalami ah oo international oo ku xeel dheer badda iyo dacwooyinka caalamiga ah waxayna soo bandhigeen maalintii Isniinta iyo Talaadada iyo shalay dacwad aad iyo aad u fiican waxay caalamka iyo maxkamadda ICJ u sheegeen in Soomaaliya ay leedahay baddan Kenyana ee ku xadgudubtay Kenyana ay damacsan tahay ay rabto inay boobto hantida iyo maalka iyo badda Soomaaliya Kenyana ay gardaran tahay haddana ay rabto 100,000 kilomitir Kenya ku haysto Soomaaliya dhinaca waqooyi inay ceel shidaal ka qodayso shidaalo shirkadooyin sahmiye oo shidaalkana ay ilaa dhowr sano waday una sheegay inay joojiyaan falka guracan ee wado Kenya ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya mudane Mahdi Guuleed ayaa doodiisa waxay dad aad iyo aad aan ugu riyaaqnay una sheegay maxkamadda caalamiga ah iyo caalamkaba in Kenya ee damacsan tahay inay boobto kana faa'iideysto dowladda tabarta yar ee Soomaaliya aysan awoodin wax tabara ee ku ilaaliso badeeda una sheegay Kenya in ay u celiyaan hantideeda ee gardaran yihiin qobradeena iyo dhammaan ergadeena ayaa doodooda waxay ahayd dood aad iyo aad u soo jeedatay maxkamadda ICJ waxaa dhinaceeda miiskooda aad arkayseen inay Kenya ka maqan tahay biyo iyo magaca Kenya meesha saaran yihiin Kenya wax isku ma hayso way caddahay inaysan haysan case waxa ku marsiyoodeen caabo coronavirus daraaddeed inay ka soo qayb gali karin maxkamadda balse waxa run ah inay doodeeda ay tahay dood aan waxba kama jirin inay rabto inay Soomaaliya boobto waxay u maleynaysay Soomaaliya in ay ka jirto dowlad tabar yar inay ka jirto siyaasiyiin la laaluushi karo laga dhaadhicin karo is-afgarad balse Kenya Soomaaliya ayaa ka diiday dhammaan waxay u muuqataa maxkamadda caalamiga inay aruursatay dhowr todobadii sano la soo dhaafay waxay rabtay waxaana la filayaa in 4 bilood ilaa 6 bilood ka bacdi ay go'aan ka soo saarto cidda iskale badda Soomaaliya waxaa xusid mudan intay dooda socotay in warbaahinta Kenya ay aad iyo aad ugu naxeen
in dooda Soomaaliya iyo qaabka khabiirnimada cilmiga ku dheehan tahay ee Soomaaliya u soo bandhigteen. Kenya waxay ku doodayeen markaan fiirinayo warbaahintooda in Soomaaliya u galeen abaal, Soomaaliya aysan abaal lahayn, qaxootiga Dadaab iyo Kenya ay joogaan. Waran Soomaaliya Kenya Soomaaliya abaal waa u gashay, balse waxaa xusid mudan sidoo kale inaan annagana dhaqaalaha Kenya aan ka qayb qaadanay, balse Kenya ay rabto inay duulaan qaawan ay ku soo qaado hantiyada dhulkayaga, dhulkaas oo ay nooga dhinteen awoowayaasheen iyo ayeeyaasheen kumanaan kun oo sano, dhaxalna iyo malaayiin sano, dhaxalna ay noogu hibeeyeen annaguna aan rabno inaan dhaxal ugu hibeeyno kana faa'iidaysano kheyraad ku jiro, dhaxalna aan ugu hibeeyno jiilka aan dhalnay, kuwa sii dhali doonaan ilaa Ilaahay koomkan adduunka uu ka laabanayo kana burburinayo aakhirana aan u wareegayno. waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u tahniideeyo dhammaan mucaaradka Soomaaliya siyaasiyiintooda oo aan arkay markii ugu horeysay siyaasiyiin mucaarada iyo dowladda ee dhammaan shacabweynaha shanta Soomaaliyeed meel walba ha joogaan koonfur, waqooyi, galbeed, NFD iyo Djibouti, dhammaan waxaan ku mideysnayn dhalinyarada iyo dhammaan siyaasiyiintoodaba in badaan uu leedahay aan ka reebo NFD siyaasiyiinteeda, balse shacabkeeda xataa markaad aragtid social media inay dhammaan taageerayeen badda Soomaaliya, dhammaantoodna ay lahaayeen waxa iskale badda Soomaaliya Kenya gardaree wadaa. haddaan bidhaamiyo siyaasiyiinta qaar aan ala riyaaqay fikradooda ay soo bandhigteen markii ugu horeysay ninka ama hogaamiyaha Jubbaland oo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe aan ku eedeena badanaa inuu yahay puppet ama u shaqeeya Kenya oo Twitterkiisa ku soo qoray inuu la jiro Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya sidoo kale Sheekh Shariif wuxuu sheegay inay badda Soomaaliya leedahay oo la jiro Soomaaliya. Cabdiraxmaan Shukuur aan ku eedeena inuu yahay saxiixii la isku qabsaday MOU inuu ka dambeeyo, wuxuu sheegay inay badda leedahay Soomaaliya la jiro. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ogtihiin ninka geeyay madaxweynaha geeyay dacwada 2014 August badda wuxuu sheegay sidoo kale inay badda Soomaaliya leedahay la jiro. waxaan aad ugu riyaaqay mucaarad iyo muxaafid inaan markii ugu horeeyay inta noolahay siyaasiyiin Soomaaliya kala fikir duwan iyo shacabweyne kala fikir duwan ay dhammaantood u riyaaqayeen badda, dhageysiga badda ee la socdeen ee taageerayeen Soomaaliya. waxaan leeyahay halkaas aan ka sii wadno midnimada. waxaan leenahay annaga leh waxaan kula duwanaan karnaa waa fikir, waa caadi, qofka fikir waa kula duwanaan karaa, siyaasi waa kala taageeri karaa, laakiin waxa annaga aan leenahay bari iyo bad iyo hawada dhammaan annaga iska leh. aanu ku minooda midaas taaga kamidana qof aan u ogolaanayna malaha, qof aan siinayna malaha. waxaan fiidiyoga ku soo gunaanadayaa anoo maalmahan qiimeynayay dacwada badda qaabkay u socoto. waxaan rajaynayaa iyo markaan dhageystay warbaahinada caalamka iyo warbaahinada Soomaalida iyo Kenya inay u eg tahay guusha dhowr bilood ka bacdi ICJ sheegi doonto inay leedahay Soomaaliya, anigoo ku tilmaamayo qaababka ee dacwada badda Soomaaliya u soo bandhigtay iyo sababta ay Kenya uga maqan tahay iyo dood la'aan meesha la soo fadhiisatay. haddaan qiyaaso ama dacwooyinkii hore badda ICJ ay qaadi jirtay sida South China Sea, China iyo Philippines ayaa isku qabsaday, ICJ iyo isla tageen. China way goysay ICJ, dacwada badda waxaa la siiyay oo xukuntay Philippines maxkamadda ICJ. inkastoo ilaa hadda badda South China Sea ay ciidamada China xoog ku joogaan, balse waxaa la go'aamiyay inay leedahay meeshaas ICJ. Eritrea iyo Ethiopia sidoo kale dhulkii isku haysteen maxkamadda ay go'aamisay caalamiga ah. waxay Ethiopia markii ugu dambeeyay dhowr sano haysteen, 12 sano waxay ku wareejisay mataqaana Eritrea. Nigeria iyo Cameroon waxay isku qabsadeen dhul badeed kheyraad leh oo ka buuxa gaas iyo shidaal, waxaa lagu wareejiyay markii dambe Cameroon ka bacdi markay maxkamadda ICJ sheegtay inay leedahay Cameroon. dhammaantood markaad isku eegtid wadamada ka imaanayay iyo wadamada ka maqnaa dooda waxna isku mihiin sida Kenya ka mid tahay, waxaan la siinay wadamada imaaday doodooda soo bandhigay. Soomaaliya iyo Kenya wadanka maqnaa waa taqaana waa Kenya, wadanka doodiisa si fiican u soo bandhigtay oo 2014 ilaa hadda doodayay qareemadooda si fiican u soo bandhigeen ee tahay Soomaaliya. waxay guusha 99% raacsan tahay Soomaaliya. waxaan rajaynayaa inay maxkamadda badda ICJ markay qaado 4 ilaa 6 bilood sanadkan aan ku jirno ay heli doonto ICJ, balse ICJ ma aha lahan ciidan fuliya amar ka soo baxo.
oo ciidan ma laha kaliya waxay leedahay awood oo mataqaanaa oo cadaalada Kenya waxay damacsan tahay inay xoog ciidamadeeda ku joogaan laakiin ilaa how long ay badda Soomaaliya 100 kilometer square ay joogi karaan waxaa kori doona caalamka maadaama maxkamadda ICJ leedahay UN-ka political pressure oo caalamka oo dhan political pressure saari doono ugu dambeynna waxaa la filayaa in mataqaanaa iskaga tagi doonaan maadaama haddii keeska laga raayay haddii sii joogaan in caalamka uu dhihi doono maxkamadda ayaa tagteen maxkamadda ayaa sixday iskaga bax meeshaan Soomaaliya ciidan badeed ma laha awood ciidan bad ma haysato ee ku difaacata badeeda maadaama ciidanka badda wali uu tababar ku socdo laakiin waxaa la filayaa inuu dagaal dhicin oo Kenya anagu aan isdagaalin ay garowsadaan inay baddan Soomaaliya leedahay aysan dhici karin Soomaaliyana maanta indhaheedu ay furan yihiin rabtana inay ka faa'iideysato badeeda ay qeyraad ku jiro 100,000 oo kilometer square waxaa ka buuxo shidaal aad iyo aad u fara badan iyo saliid iyo macdan iyo kalluunka tuunada haddaba waxaan u haystaa Kenya midaasna ma ahan midaan siin doono ee mid aan anaga ka faa'iideysan doono ubadka iyagana aan uga faa'iideyn doono